halkan maanta waxaa si fiican uga socota shaqo maarataane hays caawisa ah oo dadku ay maarataane ka shaqaynayaan buundo dadku ay kaga tallaabaan daadka kolka gugudda iyo dadku ay meesha marayaan ay kaga tallaabaan halkan seeraha oo ay u tallaabaan xaafadda Sheekh Cismaan kolkay ka yimaadaan magaalada weynta Boorama meeshani taariikh ahaan dad badan bay qaaday sanadkii nimkay naga tagay qaar ku dhintay iyo qaar dilq laga saaray oo Ilaahay badbaadiyay dadkani markaa way isxilqaameen waa xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Boorama oo iska ururisay qaaraan ayaa maanta ayagoo qaaraankii soo siistay sibir iyo dhagax iyo garaa'id iyo wixii ay u baahnaayeen haddana xooggoodii ku isticmaalaya maanta oo shaqaynaya weeyaan dadka halka muuqday runtiina waxa weyn xasuusinayaan magaaladii Boone maarataanay dhowriye kontonnadii oo Cismaan waa bari Allah naxariista ka bilaabay hays caawisada kolku wadooyinka waaweyn ee maaratayn marka laga dhaadhacay jiif iyo dhoobi iyo maarataanay margaafati iyo dhulka la yiraahdo iyo hariya u qodi jiray tan waxay soo xasuusinaysaa maanta hays caawisadii Boone ka bilaabantay 5 qarnigii hore ee maarataanay aad iyo aad ka maartay wadanka ugu caan noqotay ayaa maarataanay maanta halka muuqata waxaan markaa dadka horta waxaan ugu tahnideynaynaa lacagtoo jeebkooda ay ka soo saareen ay wadankoodii ku hagaajisanayaan oo iminkaas roobka istiraacada soo socda laga maalmaartaan rajaynayna laga tallaabo buundadaas ay dadku kaga tallaabaan in maarataanay arrintaad ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin kuna ammaano yihiin nolol ay ku soo celiyeen wadanka waxa kale oo dadka ugu baaqaynaa gudaha iyo dabadaba meel kastoo ay joogaan ciddii codkayga isgaadhayo ee fariinta isgaadhaysay inay ka soo qayb galaan ismaha maartay wadanka ka socda khaas ahaan buundada hadda ay sameynayaan maartay reer Sheekh Cismaan inay ka soo qayb galaan dadka reer Boorama ee waliba khaas ahaan bacmistarka Ilaahay waxsiina waxaan leenahay waa sadaqad jaariye ah ku soo darsaday intaanu tareenku idinka tagin waayo waxa weeyaan qof kasto halka ka tallaabay ajri buu qofkii lacagta galiya ka helaya waxaan ku hadlayaa magaca xaafadda Sheekh Cismaan anigoo Maxamed Xadi Samatar daro lagu magac dheer waxa weeyaan xaafadana way isxilqaantay si wanaagsan ba isku xilqaantay waxaan qabaqaabana bishii 9aad iyaan hawshan galay waxaanu garanay inaan ma aragtay horta adduunka arrinka ka weyn arrinkii baanu galay waanu ku guulaysanay dabcadan galbeedka inaga xigta laga bilaabo beerta reer Sheekh Aadan beerta Cali Waasac beerta Muumin Doolaal beerta ma aragtay Muuse Isaaq beerta ma aragtay Cumar Maydhane beerta Daahir Cabdalle beerta reer Yuusuf beerta ma aragtay beerta reer Yuusuf beerta ma aragtay Xuseen Abo beerta Sheekhi loo oran jiray Sheekh Xuseen Riyaale beerta Cusmaan Reydel inta u dhaxaysa ayaan istaqaban qaabinay lambar baanu sameynay qofku wuxuu ku tabarucaya bariiska uma aragtay aan ku qorro lambar baan sunnay buugana lambar baan ugu haynaa sidaasaanu isxilqaanay waxaanu ka codsanaynaa ma aragtay dadweynaha iyo adduunyada halka waad ogeydaan dad badan buu qaaday daadku dad badan baa dhaawac oo ka kacay Ilaahay ka bixiyay waanu u damqanay gacmo kala ta maartay fool ma dhaqdo waxaan ka codsanaynaa in bariiska seeraha laga tallaabayo gacan laga geysto tabaruca bariiska gacan laga geysto aanu maartay ugu baaqaynaa walaalayaal xaafadda Boorama waxaan ugu baaqayaa xaafadda Sheekh Cismaan sida isku habaysay ay maartay guri kasta lambarkiisa waanu garanaynaa dadku waxay yiraahdaan hadda jeer war lacagtu xagay martaa laakiin maanta waxaanu nidhi ma aragtay nala xisaabtama lambarkaana haysta marka uu lambarku qofku keeno uu nala soo hadlay wuxuu leeyahay guri hebel baan ahay lambarkaasaan haystaa uu noogu soo shubaya markaasaan ka saxaynaa hawshu sidaas fiican ayay u socotaa horta bariiska arkaysan waa laga warramay culimada dhan way ka warrameen maxaa gudoomiye maqaayad rag gacanta ku hayo dar alla koow ka yahay khayr la siiyay wax badan buu ku dadaalay uu ku jiraan in la ka intii la dhisay kama uu bixin dar alla magaciisa waa baxayba ilaa uu rumeeyo saas ugu rumooday dar allu yahay uu hadii xabaalay tahay hadii xaq kasta uu ordaya waa dar allu waxa weeyaan dariiqan qodobtiin dadkeen wax badan qaaday culimadeena waa ka wartashay xasan uu sheegay laakiin waxa ku daraya dariiqan iyo xaafadda dhankaaba dawladda waa soo xarmalayna in tiro ugu jirin in xajada loo soo diro albaabay ka soo qaadaan mooyaan wali daawiyadii dariiqyadii dhexdooda laga banaan lahaa xaafadihii dawga yaal gidaafadii tira lagu ma jiraanba ee barorta soo tiriyaano waxaan oran lahaa maadaama gudoomiyihina uu joogo oo maanta xafladda khayr la sii naga soo qayb galay
waxaan maanta aan u sheegaya in dalcaddood muxuu ahaada xaafadda Sheekh Cismaan xaafad weyn oo xaafadaha Boorama marka la tiriyo xaafad way ka weyn tahay xaafadahan way ka weyn tahay xaafad ka weyn buurta ka soo noqotaa dhagaxa ilaa dhagaxada aad dhaaftaa waa loogi xagga shana qarkasha boora u talawday laakiin xaajiyada ay soo diraan mooyaan wax qabadkoogii meesha uu ka maqan yahay kuma jiro hadday laamay tahay hadday biriish la sameeyo tahay dadka hadday gidaafa tahay meydka halka aan ka dhax guraynaa halka laga qaaday dooxa way maqlaan maalin kastaba waa dhigtoona ku soo dhacday inuu xal carruur badan qaaday inay maahay dad ku dhinteen mar walba way og yihiin waana mas'uuliyiintii magaalada ee maxay ahayd dawladda hoose gaar ahaan khaas iyada u sii hadway waxaan u joognaa maanta waxa weeye biriishka u dhaxeeyay xaafadda Sheekh Cismaan iyo magaalada Boorama oo ku socda hawl iskaa wax u qabsaa oo ay Boorama ku caanahayd ilaa iyo waqtigii Soomaaliya si qurux badan oo sharaf ku dheehan tahay buu socdaa contribution-ka xaafadaha ayaa iska ururiyay waxaana kulleeyto la ka dhiman waxa weeyaan intii dawladda iyo intii qurba jooga waxaan leenahay bulshada qurbaha noo joogta ee reer Boorama maanta waxa ka socda dalkeenii waa wax la taaban karo oo wax tusaale lagu qaadan karo waa wax loo wada baahan yahay waana sadaqa jaariya ka faa'iideystaan oranaya qolooyinka dibadda jooga kuwa dalka joogana ee gudaha Boorama joogana waxaan leeyahay $1 oo aad ku dardarsataan wax weyn bay naga taraysaa intaas iyo bilaabkeeda saddexlaabkeed bay ka taraysaa degmada Boorama dhaqaalaheedu ama dakhligeedu degmooyinka Soomaaliland degmada ugu liidata weyn waxa laga yaabaa hawl socodsiinta maalintii inayna jabin dad badan laakiin waxay filayaan meesha inay wax yaalaan wax walba talada ka muhiimsan in la isku tago oo la yiraahdo maxay noo dana xanaysana oo wax meesha yaala abase ahaatee xaafadda Sheekh Cismaan aad bay u cabanaysaa wana xaqiiqo la taabanayo wax badan oo jira way jiraan waxa kaliya ee la taaban karaa waxa weeye inay iyaguna isku tagaan wadooyinka ciriiri ku ah waana soo iyagoo isku wacayin oo guriga ka soo horjeeda ee albaabkiisu degay waqtiyadii iska degtay imikana waa la qaabeyn karaa marka bulshada qaybta hogaaminta ah ee daral la ku soo yahay ee odayaasha ee xaafadda u kacay iyo dawladda hoose ayaa iska kaashan hadii Ilaahay raado wadooyinka intii awoodayada ana waxaan isku daynaa inaan furnaanaga horena u ballan qaadnay qaar badan oo hore looga soo shaqeynay jiraan oo kuwa meynka ah kuwa yaryar ee xaafadaha dhexdoodana oo isku taxalujinayna waxaan bulshada uga faa'iideynayaa oo aan leeyahay war waxa weeye maanta wax la taaban karo ayaan haynaa halka sanadkii hore waxaad ogeydeen inta maal iyo nafqa uu seejiyay ee dooxaas uu qaaday aan maanta joognaa وانا الحمد لله ما انت بدباديسي hadaan ku jirno oo hawshaasi ka socoto waxaan leenahay ka faa'iideysta